واي اسدين لكن ما انت هذا شاطئ قبل soo xirato exposure lagu sameeyana dumarkiya ku xoqanay iga qari afyartahnaya laba dhuucul isdagaalaya naya laanka ku sheeg isdhaa bidmo hawaakan shamsoy adiga hadda maxaa dhaanta dhuucul caynaysa yani waxa ma dhaanta dhuucul dhaasa naya laanka uray oo baarada leh waxba ma dhaanta iga qari afyartahnaya shamso wallahi waa wareertay horaan kuumeed garaacay haddana waa kugu raaxaysan u fiirso an ilaa hadda kuma caayna afka hadaa kala furto dhiiqa ku jirta shamso remember weekend-iga hadda u dambeeyay last weekend axad la soo dhaafay sabtigi habeenka axad soo galeysay maxaa dhacay guri baa laga soo dejiyay sharaf xumo waliba adigoo lagu dhirbaaxay amra faqiireedka inta ka dharagtay ayaa guri inta marti u tagtay ee gabdho u tagtay ay gabar si wallahi la isaga dhigay gabdhaan si wallahi ga they don't give a shit عن ماذا عن نوع دونت هاو هذين فايف كاهلين كامهلين قبل يا الود اللي انت العب الود خف يا كار هذه كنت فك عليها مان وتايا دوي مان على شمس وعنا تو قبل يا حد فوت دينت ابها يا انا والله دير لان قاب الله قاعد قبل يا الله قاعد halkii يا شمس guriga laga soo dajiyay halkii ya shamso buuq ku gashay shaatiga loo jeexay ayadoo bilaashaad garangarada ordu soo degtay shamso saas array kabiicay shamso istaagtay maya shot no adigoo saas ugu dhex bahdilan Minnesota oo habeenba guri laga soo dejinayo oo lagu bursanayo adoo feera qaawan ayaa waxa rabtaa King CK oo Minnesota sharaf iyo cizi kula nool inaad u gafto qoraan kugu sheego waxaan ku yiri adiga dhan baa wada cay meeshan doonan ka goosana inta ka goosana taamid ka darana jirto horta kala shamso bawaasiirka ma laga daaweeyay war shamso waxa kaaga daran waa is ognahay hal dhinac u fariisatahay bawaasiirkan intaas ka soo jeedo waaw ma iska daaweeyay waxa kaaga daran ba waxaan ee baqbaqdaan iska dhaadhicintaan ee madafaka amriid iyo waxa kaaga daran shamso bawaasiirka ma iska daaweeyay barkinta aan u keenay ninka u fadhiisanay waa tuurn ma soo celin maya shot no shamsoy siikii waxa leedahay taraagala doctor ku taay baqbaqi walaalo horta adiga walaalo midaaba soo xasuustay waxaan soo xasuustay nin wiilka saaxiibkay lacagta 400 oo ku tuur walaalo 400 macaasiin soo diri weysay shamso tuu habeenkaas waxa ku baxday ana ku soo diray lambarkaaga kaashabka isii ee ku tagtay ana ka dib loo ma arkin shamso tuu adama dad marka dulsaara tahay lacagtan ku sinaa wali laga helay tamsooy 400 soo dir meelaha majuusiina wal muslimka masiixiga fahmay qoran majuusiina wal isku mandiimaya ina ma jirteen macsidan la yaabayna iyo meher la'aantii milcoonkay waxay oranayaan madani weeyaan qoomiyadii dumar maamula sida ma jirteenka iyo mowdameer lagu rara marxamad reeba marug weeyaa la yiri oo macnaawiya ragga nabarra muqdiya rarbax kaga mabsiinay شيئا ما ماغاني ومدح نغلاداني معروف كي سوكيهانا وملابسانايان مرتئية مسألة دينية هذا لم يسان لي وانيمان مساحان والحكمة لوغو مهانيني من إيا متاناها دلية مالنتي فعلو توفارك ويسكالاميد ومورال كاتشاباني تارود مجرتين كوتشيرو ما أهيبا دانتا مسلم كان مسيحي فهمي قولان مجوسينا والاسكولية برلمان كدالك مريكن كتر سنة إلهان عمر أيها ugu dambeyn laga heliyay shaqadii ay aqalka cad ee dalka Mareykanka ka haysay saxaafadaha dalka Mareykanka ayaa si bahdilaada uga hadlaya eriyitaanka la eriyay Ilhaan Cumar waxa ayna soo qorayaan badankooda kelmadda Ilhaan Cumar oo laag laga saaray aqalka cad ee dalka Mareykanka Ilhaan Cumar ayaa muddadii ka tirsaneyd baarlamaanka dalka Mareykanka waxay caan ku ahayd inay u ororayso qowmuluudka yuhuud nacayb iyo inay ku faanto waxa ay tahay meesha ay ka timid iyo Soomaalinimadeeda Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in la gacan bidixiyay sababtaana loo eriyay waxayna soo qortay kelmad una qof kasta ku dhiiran kareenin oo ah dadkii eriyay waa baybigii Netanyahu waxa weey ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil gabadhii Soomaaliyeed ee baarlamaanka dalka Mareykanka ka tirsan